السلام عليكم داوديال كسو دوادا برنامجكي هaweenka oo xiligan oo kale marka ay soo gaadho aad ka daawataan Sahan TV waxa maanta iigu martiya Sahra Cilmi Maxamuud oo ah musharaxad u taagan golaha wakiilada maama Sahra soo dhaw waan dhawahay maama waan dhawahay intaynu wareysigii su'aalaha u galin bal taariikhdooda kooban Sahra waa tuma Sahra waxa weeyaan gabadh reer awdala waxa weeyaan gabadh u dhalatay gobolka Awdal gaar ahaan sad afarta degmo gobolka Awdal ba ka soo jeedayanahay waxaan ahay hooyo beeraley waxaan ahay hooyo soo dhameysatay dugsiga sare imikana maxay jaamacadana dibloma ayaan maxay haystaa hadii alla ka dhigo insha Allah de kulli waxbarashadu iska sii socotay deena male waxna male wala sii wadi doonaa hankayguna waxa weeyaan inaan ka qayb galo golaha wakiilada Soomaaliland musharaxad baa tahay maxaa la suran karaa way kugu dhalisay inaad noqoto musharaxad golaha wakiilada waxa hooyay ugu dhalisay inaan golaha wakiilada noqdo horta muddo fog ayaa la doortay golaha wakiilada waxaynu dooranay rag buu ahaa ragii aynu dooranay 20 sanad waxba uga mahlinta ay joogan run ahaantii waxa la waxay bedeleen haba yaraatee ma jirto inkastoo waqtigii la dooranayay aan loo xulin kalateeriya aan loo xulin karti aan loo xulin dad jacayl iyo dhul jacayl inta ba loo xulin laakiin waxay ahayd waqti qabyaalad iyo xasaasiyad baahaydo wuxuu ba lagu tartamayay reehib la soo bixireedo la soo baxo haba lagu tartamay markii halkii la tagayna de rag wada aqoon lahayn rag la doortay ma ahayn rag ka soo baxay kaalintii aan u dirsanay wahagaag sababtaasaad soran kartaa inaad maxay heedeen wahagaag inta badan waxa la isiraahdaa dumarku isma dhiirigeliyaan iskuma codeeyaan adiguna musharaxad baa tahay arinka ka war waa sax horta dumarka gaab badan baa hor yaala gaababka hor yaala ayaa keenay in dumarku codeyn waayaan gaababkaas waxa ay yihiin dumarku waxa wax hor jooga horta waa dhaqan ta kale waa qabyaalad dumarku waa dhaxdan iyo dhalasho inta badan saddexda qodob in ka talaabsanin waa saddexda aniga ma sha Allah beeraley baan ahay beer weyn waan leeyahay ugu filan hantina waan leeyahay maxay hadaan inta badan ugu dhiiri kariyo odaga weena markaan u sharaxay inaan ka qayb galo ta kale islaaha dumarka malaha bad nasiib dheer taayna waxa weeyaan meel baan ka soo wada jeednaa oo maanta layguma riixayo reehibel weeyaan iyo reehibel bay ka dhalatay in layguma riixayo inta kale maadaama beeraley ahay maadaama oo ahaa umliso waxa wadanka ka buuxo jooga waxa weyn ciyalkii ka dhaliyo hooyooyinkeed qaar ba xilliga hooyooyinkood ugu yiraahdaan caruurtii aad naga dhalisay waa hoodayaar codkan ay ku siinayaan abaal kale loogu maayo waxa kale ay dhiirigeliyo hooyo waxa weyn bulshada ka soo jeedo oo iyadana run ahaantii hadii beeraley tahay oo wiciga beeraha maanta ka joogay ilaahay baa xisaabin kara waayo dawladda aqoonsigeena ma jirto maalgelin ma haystaan waxa weeyaan maxay heedaan abaari iyo waxa dhacay sagar baa dhacday duufaantii sagar baa dhacday waxa la wax wadanka laga taray wax laga qabtay ma jirto horta golahan aan ku socdo sababta aan ugu socdaa waxay tahay wax badan oo waxa yaalo maxay dastuurka ku jira la bedeli karo dastuurkuna ma hada aayad ilaahay soo dajiyay wax bilaadan qortay markii horena ansixinay runaantii dadku deelbax uma hayn manay garanay qodobo awdal baan ka soo jeeday raawdal ay ku darsadeen oo baarlamaanka u furfuraya ay wax kaga noqon karaan haba yaraatay ma jirto anu waxaan islaada raawdal dhowr jeer bay khasaareen 60kii waa lagu khasaaray ya kii maxaad 93gii halkan lagu qabtay ee ahayd maantii miiska wax ku qaadin lahayn waa lagu khasaaray tiiteedu bayna qabsatay waxa weeyaan haba sayeeshe de waxa weeyaan sidaan kuugu lisay ugu madan binti bayna ku dhacday inagu nabad baynu u aasayna dhibada wax walba waxaynu ku saagnay nabadgelyo darteed marka booda la soo karo dumarku in isdhiirigeli waayaan isku maxayd codeyn waayaan waxaad ku tilmaami kartaa dhaqaale iyo dhaqanka wahagaag talada dalka hadda haweenku kuma badno positionska siyaasadeed siiba waxaad musharax ka tahay xisbiga kulmiyo taageerana u tahay maxaa la soran karaa inay ugu badan waayeen talada waxa weeyaan dumar horta waxba iminka kaga jiray la dawladdiisa Iiraaniyo ilaa tan Muuse Biixi in hablo way ku jiraan haba saashada dhibicna ma aha
dowladda waxa soo saaray halgamay halkan dhiganaha haween bay ahaayeen iyo caruurta ay dhaleen wixii laga rabay lagama helin maadaama aan laga helin dadku way tashadeen hadeed waxa weeyaan qof walba xisbiga marka u horeysa been ba lagu soo xirgashanaya markii hawshu timaado ee la guuleystana bartiba laga dhaqaaqaya marka taasisay inuu in haweenku tashadeenka haweenku waxay og yihiin la xilliga ilaa inta dawladdu jirto kuwa dhaqaalaha bixiya kuwa wax caawiya kuwa dariiq dhisa kuwa wax walba qabta kuwa dahabkooda iibiya haween kaalinta ay ku jiraan cid in rageedu uu haba yaraatay ma jirto maalinta durmaanka aanu tumayno ba horta jecel yihiin ma qabyaalada la nagu beer la xawsanayo reerkiini ba laga badinaya la leeyahay ama maxay ahaydana ninku dooniyo musiciankiisu caleenta dadka u daadinayo inta uu weeyaan waxa maxay ahaydana dumarka lagu dagay haba se yeeshee maanta ahaan markay noogna haweenka way suuqan ku jira maxay ahaydana waxa beeraha ka soo baxan iibiya haweenku halka ay maanta taagan yihiin de halkii hore boqolkiiba 70 maanta haweenku waxay diyaar u yihiin haweenka codka siiyaan waxay u sii baahan yihiin de wacyigelin ballaaran oo maxay home to home oo hooyooyinka iyo hablaha jiilka soo kacayeen inagu uga soo saxaareyno halkan waxa taala qodox badan hooyo qodob badan baa taala in ragnaha laga raali hadada waaba mas'uuliyadii Ilaahay inoo sameeyay hadana waxa weeyaan intii la iska ka reebi karo waa la iska ka reebaya golaha wakiilada gabadh baa fadhida gabadhaasi de maxay ahaydaan qodob haweenku leeyihiin ma saxin karto way meesha rag baa ku xoonsan uma ogol wax dumar oo ansaxma sida la ajligeed anagu run ahaantii waxaanu jecelahay inaanu maanta golaha sharci dejinta ee ummadda sharciga looga dejinayo ee dadka waxay tabanayaan loo dhameystirayo inaanu ka qayb galno insha Allah hadii Ilaahay nagu simo oo Ilaahayna gaarsiiyo nagu nuguuleeyo in rag oo u diidan inay haweenku qayb ka noqdaan siyaasadda haweenkii oo isdhiiri gelinaynin dhaqaale yari badan oo haysata dumarkii dhaqankii oo meesha yaala intaas oo dhan baa ku hortaala maxaa diyaarsatay oo isleeday wad kaga gudbi kartaa waxa soo dhan horta mid meesha way taalaabo mid meesha way taalaa taalo waxa weeyaan horta qofka uu sheebkiisa ku xisaabtamo waxa toos nin la ogal gasho tolna waa arkayna markii jeebkaaga wax kugu jiraan da waxba lagu dari laakiin qof faramaran oo yiri waxba rabaa de idna gaabka ma bixin karto ta kale tan siyaasadda lama fahansana siyaasaddu waxa weeyaan qofka la dhiiri geliyo maxay ahaydana wax la tiri waayo loo dirsado isaga wixii dhaqaale ku bixiyo wixii la bixiyo qof marka kartile oo loo xulay oo ka soo bixi karana meeshii la geysto laguna xisaabtamay ummaddu dooranaysa ku xisaabtantaan laakiin markay ku geyso qabyaalad isagoo noqon buuran lahayn isagoo daneynaya inuu hanti meesha ka helo wax alla wuxuu suura galaya ma jirto marka kulli waxaan marinayaa TV-ga sahan ma sha Allah waxaan u marinayaa inay kulli haweenka Soomaaliland gaar ahaan haweenka awooda inay isku duubnaadaan hadday dhaqaale noqotana la urursado oo maxay col hortii hub samayso xaas hortiina xoolo dhaqo waxa weeyaan ta maxay maanta suuq fadhida ku ka shilan meel ay dhigtaa kun ka shin bari daafac badan ayuu ay galaya iyadoo ay ula xisaabtamaysan wax u tari doono waxna qaban doono hadii Ilaahay ka dhigo arinta koontada ma mid haweenka dhiiri gelin kartaa mise wax kala baad u aragtaan waxaan u arkaa kootada in haweenka dhiiri karinayso sababtoo ah inaan aqoon lahayd oo maxay ahaydana ku xisaabtamaysan inay soo baxdo qabiil bay ku hadhay kootadii marka qabiil ma noqonayso laakiin intii cod ay hesho iyadoo dadaalkeeda ku keento haddii hablaha kale tartamayso ka badiso ay ku soo baxaysaa taas waxaan u arkaa inay cadaalad noqon doonto maxay hablo badanina inta hablood in kastoo 3 hablood gobol ahaan ay ka soo bixi doonaan dumar xoog u badanina ay diyaar u yihiin han wada leeyina ka siyaasadda marka hada kullu dumarka Soomaaliland 18 dumar kullu kuma filan tiyo sidaa tay hadana gobolada dhexe marka aan maxay ahaydaan qolada dhexe waxa weeyaan de waa 5 gobol sool ka reeb waa 4 gobol 12 gabdhood ayaa u soo bixi doona ya awda la waa 3 gobolada darifada 3 anu waxaan maadaama aanu dumarnahay waxa weeyaan divided by on la yiraahdo oo la noogu qayban san rag isku rigeysteen
ama maxay ahaydaan xaqoodii de qaar loo duudsiyay xaqoodii ee dumar ahaan haddii aanu nahay anagu waxaan u soconaa wabaha dumar meel kastoo joogtaba in loo simo wixii cadaalad ah koota hadday tahayna loo qaybiyo uun oo xitaa gobolada loogu qaybiyey anigu ahaantii run ahaantii anigu dee ma jeceli haddana hadda se wax u dhacaan haddii la jabo qofka siduu u jabo uunbuu u dhutiyaa marka waxa weeye sidee hagaag xisbiga aad musharaxa ka tahay ka waran haween ahaan dhiirigelin intee leeg baydiin hayaa horta run ahaantii xisbigan waa xisbigii waa xisbi xaakimka waxayna jecel yihiin haweenka kootada iyo maxay ahaydaan tagaar isku soo sharaxayso hubta inay cod heli doonto in la garab galo waxa jirta oo dhici doonto haday doonto in adigu beeshaad ka soo jeedaad iska soo sharaxdo isla beeshiini uu iska soo sharaxo ciidaad isku jifatiino inana hadiiba hawshaasi timaado maxaa ku qorshaa taasi way jirtaa waxa jira kulay inama tartamaya way jiraan waxa weeye waana la kala xushay iminkan waa kala xulanahay ya wixii maxay ahaydaan markaa gabadhahan aniga diyaar baa leeyahay codka la siiyo oo aqaliintayadii run ahaantii anuun ka dilban ayaa waxa ii garteen in laba qof haddii reerku soo saarayo qof ahaan gabadh noqdo dumarka musharaxiinta la sheekaysatay inta badan waxay ku oranayaan waxaanu ku hadhnaa oo ama haweenka ku hadhaan maamadu ciday ka soo jeedo iyo ciday u dhaxday dabcan taasoo kale iyadana ka waran taasoo kale maanta ma odhan karo kana waan u dhaxay kana waan ka dhashay hal jifo oo keliya ka soo wada jeednaa anigiyo taasi in badan baan rajo ku leeyahay hablaha kale ayaan islaahay qadarkuna halkiisa qofkii loo qadaray horta soo bixi kara laakiin markaad eegto sida wacyigu u socdo inaan ka jaanis badanahay ayaa laga yaabaa siyaasadda inaad soo gasho maxaa kugu dhaliyaa la soran karaa horta siyaasadda haway sidii wadanku u soo noqday laga soo noqday dagaaladii sokeeye waxa soo galay inaan siyaasadda dalka ka qayb galo baarlamaanka imika jooga markii uu joogay aniga gabadh baa isku qabsanay inaan musharaxiin noqono xilligan aad bay dumarku siyaasadda ugu horliiteen gabadhii way ugu adkaysatay inaan isla hadhno labadayado inaan u dayno reerkuna way naga codsadeen inaan wiil uga hadhno sida ajligeed ayaan uga hadhnay marka hiigsigeedu ilaa waqtigaa wuxuu ahaa inaan noqdo welina nolosha way iska joogtaa oo haddii ilaahay idankeeda leeyahay de maalmo weeyaan adduunyadu qiimo ma lehine maalmaha la sii joogo insha Allah waxay ku dhini marka waxyaabo badan markii hore injoo baan ka soo bilaabay hawshayda aad baan beedaan ugu bixi jirnay oo dadkan wax la qaban jirnay masaakiinta danyarta waxaan jirnay maxay ahaydaan ceelal waxaan jirnay ballayo waxaan xiri jirnay meelaha soil erosion ee ay qaadaan baan waxaan jirnay markii dambana waxaan ka shaqeyn jiray imtixaanaad baan dhul galo warfishan baan ka helay markaa shaqo ilaa xeebo dhan ayaan ka soo shaqeyn jiray ta kale professionalkayga kalena waa umliso markii hore anigu aan bartay intaa ummadee halkaa degan afarta gobol runahaantii dumar ahaan waan kala soo shaqeeyey waxyaabo badanoo de soo qabtayna way jirtaa taariikhda kulley xusaysaa yaa dumar badanina igu abaal hayaanoo dee garabkaygii dadyooga inta badan markay isla fadhiyaan waxay ka oranayaan haweenku waxay ku fiican yihiin guryahooga inay soo baxaan kuma habboona haweenku waa inay wax koriyaan ama dhalaan bay ku fiican yihiin inay siyaasad galaan arrimo bulsho soo dhex galaan ma habboona ka waran arrintaas horta waxa weeye waa si khaldan way khaldanta waxay u khaldan tahay inanta hooyada mutacalimo tahay ay aqoon leedahay ilmaha kale ka sareeya oo xaggii aqoonta ka dhisaysaa oo halka laga soo dhismayo sidaska u horeeyay qoyska ka soo dhismo hooyada aabahay qurxisaa oo aruurta qurxisaa oo haday aqoon leedahayna dajidka toosamiyada hooyadu ku ridaa markay ka qayb gasho taladii dalka leen anaga wixii diintu ayna noo ogoleen shaqaba kuma lihin oo diinteedu xaqayna siisay dadka kama helayno laakiin xaqa ugu badan diinteedu saddex jeer ayaa naga xaqna siisay laakiin xaqi idii nagu dhaqmi lahayd way iska yar tahay maadaama ay sidaa tahay dumarku waxay ka liitaan xagga siyaasadda waxay u baahan yihiin dumarku inay waniga kula hooyo maxay ahaydeen guri in loo tago wax laga dhaadhiciyo waa dumarku waxba lagu quflo siyaasi baa wax ku quflay siyaasiga wuxuu ku quflay hooyadan in laga furfuro
oo la dareensiyo hooyadu waxay qaban karto in iyadu dareemayso way hooyada maanta halka ku dhibaataysan waan dareemayaa waxay tabanaysaa waan garanay iyadoo nii sheeganin ya in ragsa maalintu ku gaadho halkuu rabo dib uma soo jeedo hatta salaam calaykum dib uma jirto ya anigu maanta hadii ilaahay igu guuleeyo talada dalka oon helo baarlamaanka aan galo waxa weyn hooyada maanta tidaa sahran u tagaya ee timaada cidiga hor joogsan kartaa haba yaraatee ma jirto xogtooda dhamaysin kartaa annaka ma talaabsan karo dawaa jiirkaygii oo bilis waxba wada dareemayna ugu dambeyn idinku ka haween ahaan talama isa siisaan ma tashataan wax badan ma iska weydiisaan xaaladaha badan ee idin hor yaala annaga oo aad dumarka siyaasadda musharaxiinta waan kulana hablaha musharaxiinta run ahaantii hablaha reer awdal ee musharaxiintii waa hablo aad iyo aad uga go'an tahay inay wax bedelaan sababtoo ah inagu waxaynu mar walba nidhaahnaa maxay ahaydeen baarlamaanka waan ku heeranno waxba nooma yeelaan 283 ilaa aynu ka nahay ciisiya inagu 13 xubnood aynu ka nahay baarlamaankuna waa 280 waxa weeyaan dhibicna kama nihin waxa weeyaan waxay sidaas ku dhacdayna waxa dadku u xisaabtami waayo oo marka hore gorgortami waayo de sida uu wax u galay unba wax loogu siinayaa sida ajligeedu waxa weeyaan waxaan maanta markaan anagu dumar ahaan isku tagno ee wada sheekaysanayno isku nimaadno waxaan dareenaa waxaan maanta inaga maqaneen ku cabanaynaa inay rageenu sabab ahaayeen sababtoo ah hadayna iyagu ka hadlin maanta 20 sano meesha fadhiyaan inta qodob la ansixiyana waa la garan karaa wali intii ay fadhiyeen hal qodob oo la yiraahdo gobolada wax loogu beeriyay halayna la ansixiyo oo golaha dhexdiisa ka loobin gareeyeen oo ka maxaydan oo looleeyeen oo qodobkana rabnaa hala furfuro deema jirto ya wax la hagartu waxay uga timid gobolkan xagga ragayaga arinta saamiga ka war saamigu de waxba kuma leeyahay horta saamiga markaanu ka hadalno waxa leen gobol ahaan saamiga aynu rabnay dadyo badan way cabanayaan waxay leeyihiin gobolku halkii loo baahnaa iyo intii loo baahnaa ma haysto idina dumar baa tihiin oo kootaad ku tagi doonteen isku dar xaalku soo noqon doona horta waxa weeyaan wixii kootada ka soo baxaa rago mu ka dhilmaya waa saddexda dumar halka ka soo bixi doona ee tiradan 13 uun ka go'in doonta wax la inoo siiyadiyo la yiri maanta awdal de waxba loogu daray saddexda hablood oo u dheer maxay ahaydeen 13 iyo 16 xubnood de ma jirto imika waxa dib soo dhacdo waa kan ilaahay masiibada iyo umurta keenay de hadii doorashadu saadib ugu basii dhacdo waxba qurux badnaan lahayd in la furo dastuurka oo saami qaybsiga dib loo galo oo la saxo qof walba wuxuu tabanayo loo dhameystiro si wadanka uu noqdo wadan talaabsaday ictiraaf hela isku kalsoon soo noqdo laakiin inta tabashi jirto run ahaantii waxba dhutiyo doona saxarahan hadii dastuurka la furo ma waxay kula muuqataa in saamigii reer awdal cabanayeen inay wax u hagaagayaan dumarkuna wax heli karaan horta way hadii la furo ma hadii ragga jooga wax ansixinaya ay wixii ay doonayeen horta midida daabkeeda rag bahaya hadii raggaasi rag bay ku jiraan raggii wax la qaybsan lahaayeen bil joogan ma raggaasi hadii seeft wax ku gooyaan oo ragga wax la qaybtamaan mise hadii ay raggaasi sidii awalba ay hebedka oo haayeen ay u hogtaan waxooga ka qaadan waayaan hadii la furo dastuurka oo sideeda loo ansixiyo oo gobolada la simo ya ilaa laguma kala badno gobolka inaguna waxaynu nahay reer awdal iyaguna waxa weeyaan inaguna reer shakhs samaroon baynu nahay iyaguna reer shakhs xaqoon waxa weeyaan anigu marka horeba aniga ay dhayadayda marka ka hadlo iyo fikradahayga waxa weeyaan maadaama oo maxay anigu gobolkan ka soo jeedo gobolkan tabasho badan oo leeyahay tabashadu way jirtaa wuxuu ma la dhaafi karin maadaama maanta waqti jiro oo cabashi jirto oo maxay ahaydeen wax walba wadankiina la ictiraafsanayn dhibkii horeen anagu isku geysanayna waxa la gudin yahay maad geysan dambarkii ku jirin markii hore wax dhaqaaqayeen ayaynu gudintiinagu isku jarnay imikii haatan dastuurka la furo waxaan ku caloolfayoobay oo la xulo dad dastuurka la furay ka hadla oo wax waxeeya waxaan anigu aaminsanahay in wixii aynu xaq u leenahay inuu ka heli doono ugu dambeyn maxaa fariinood kaga faa'iideysanaysaa barnaamijkan haweenka Sahan TV anu waxaan kaga faa'iideysanayaa bahda haweenka ayaan halkan u marinayaa fariin waxaan leeyahay bahda haweenka
dee gobolkan awdal maanta musharaxiin hablaa iyo jooga una tartamaya golaha wakiilada oo halkii ay ka go-aysay xeerasha laynagu dhaqo iyo waxaan maxaydana maanta wax laynoogu qabtaabay ka go-ayeen baanu diyaar u nahay maadaama aynu diyaar nahay de inamadeenana waynu aragnay waynu dooranay si qurux badannu u dooranay 20 sano joogta taane su-aasha aan maanta idiin dhiibaya haweenka reer awdalow waxay tahay inamadeeni maxay bedeleen waa kow anu haween baanahay weli ma gelin golaha waxaad maanta ay golo xisaabtanto oo kharibayna ma jirto waxaan hagaajiyo mooyaane bal nagu dayo oo inaan sidooda u khasaarinayo inaan wadanka wax u qabanno wax idiin tarno bal maanta annagana nagu habsado habliina doorta 3 hablood ayaa la rabaa 9 gabdhood oo musharaxiin 3 hablood ee ugu codka sareeya baana soo bixi kara ciday doonaan baa noqdaan ta alla u qorayna way noqon doontaa laakiin dumarka waxaan maanta kaga faa'iideysanayaa TV-gan sahan inay isku tagaan inaan maxaydaan anaguna shirar u qabanno inaan baxdeeda haweenka u yeerano inaan guri ugu tagno insha Allah bidlilaahi kariim wax badan oo siyaasigu ka dhaadhiciyay baa jirta waa niga furfuri doonaa walaal waynu wada hadlaynaa anigu adaa ku damqanaya adna anaad damqanaysa marka labadeena fikir isku biirayna insha Allah bidlilaahi kariim wadankeena wax qaban doonaa waxay hayd Sahra Cilmi Maxamuud oo ah musharaxad u taagan golaha wakiilada oo marti iigu ahayd barnaamijka haweenkay sahan TV oo idin ka imanaya magaalada Boorama anigoo Nimco Cumar Xuseen halkan idin la socodsiinaysay kamaradu waa Shacay Maxamed Kaahin iyo Maxamed Xasan Ismaaciil Shirbiyare intaynu barnaamij lamid ah ku kulmi doono nabad geliyo